diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa galinkii dambe Isniinta garaacay dhismaha qunsuliyadda Iiraan ee ku taala magaalada Dimashq ee dalkaasi Suuriya. Taliska ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in 7 sargaal lagu dilay weerarka xagga cirka ah ee ka dhacay caasimadda Dimashq. Taliska ayaa xaqiijiyay in saraakiisha la dilay ay laba ka mid ahaayeen jarnaale isla markaana ay ka tirsanaayeen ciidamada Qudus oo ah garab ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan. Saraakiishan ay magacyadooda ku kala sheegeen Jeneraal Maxamed Reza iyo Jeneraal Maxamed Hadi, kuwa oo ahaa la taliya sare oo military. Dowladda Iiraan iyo Suuriya ayaa cambaariyay weerarka lagu burburiyay dhismaha u dhow xarunta safaaradda Iiraan. Wasaaradda difaaca Suuriya ayaa sheegtay in diyaaradaha Israa'iil ay beegsadeen dhismahaasi oo ku yaala waddo weyn oo ku taala galbeedka degmada Maza. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa ku warantay in Jeneraal Shadi oo 63 jir u ahaa sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Qudus qaybtooda howlgallada dibadda ee ilaalada kacaanka isla markaana uu taliye ka soo noqday Lubnaan iyo Suuriya intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2016. Jeneraal Xaaji Raxmaan ayaa isna ku xigeen u ahaa Jeneraal Shahdiin. Safiirka Iiraan ee dalkaasi Danjir Xuseen Akbar ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee F-35 ay si xun ugu garaaceen qaybta qunsuliyadda ee safaaradda. Safiirka ayaa tilmaamay in qaar ka mid ah diblomaasiyiintooda ay ku dhinteen weerarkaasi. Taliska militariga Israa'iil ayaa iska diiday inay wax faallaa ka bixiyaan weerarka, iyadoona laga cabsi qabo in weerarkan uu sii xumeeyo xaaladda bariga dhexe. Israa'iil ayaa dhowaan qiratay in sanadihii u dambeeyey ay boqolaal weerar ku fulisay bartilmaameedyo ku yaala dalalka Suuriya oo sida ay sheegtay xiriir la leh Iiraan iyo kooxaha hubaysan ee ay taageerto. Tel Aviv ayaa ilaalada kacaanka ku eedeysay inay tababaraan kooxahaasi. 20kii bisha January ayay ahayd markii Israa'iil ay duqeyn ka dhacday magaalada Dimashq ku dishay 5 sargaal oo ka tirsan ilaalada kacaanka Iiraan. Waxaana ka sii horreeyay weerar kale oo 25kii bishii December ka dhacay dalkaasi Suuriya ayna ku dishay janan kale oo ka tirsan ilaalada kacaanka kaasoo lagu magacaabi jiray Jeneraal Sayid Razi. Jananka ayaa qaabilsanaa isku dubaridka isbahaysiga militari ee u dhexeeya Iiraan iyo Suuriya, waana qayb muhiim ah oo ka mid ah shabakadaha gobolka ee Iiraan taageerto ee loo yaqaano dhidibka iska caabinta.